awoodda hubka muxuu yahay hubka nukliyeerka qarsoon ee Shiinaha dhismaan caadi ahayn oo dhulka hoostiisa ayaa weli ka socda lama deegaanka ku yaala galbeedka Shiinaha halkaasoo la rumaysan yahay in Shiinuhu ka sameynayo nukliyeer qarsoon kaga boga muuqaalkan gobolka Xianjin oo in ka badan 2,000 kiiloomitir u jira Beijing ayaa saynisyahanada Mareykanku ogaaday waxay rumaysan yihiin inuu yahay dadaal muhiim ah oo Shiinaha ku kordhinayo awoodiisa nukliyeerka sawirada gacmeed lagu qaaday oo ay qaadeen cilmi baarayaasha xarunta James Martin ee California ayaa muujinaya waxay rumaysan yihiin inuu yahay meel kaydin kara ilaa 110 gantaal oo waaweyn helida dhismaan oo u dhow magaalada Hami oo dhowr kiiloomitir u jirta xeryaha muslimiinta Shiinaha ayaa socday muddo ka yar bil kadib markii dhisme kale lagu arkay sawirada dayax-gacmeedka oo ku yaala meel u dhow magaalada Yumen ururka saynisyahanada Mareykanka ee loo soo gaabiyay FAS ayaa ku qiyaasay in dalka Shiinaha kaydin karo 120 gantaal oo nukliyeer ah natiijooyinka waa kuwo muhiim ah marka si gaar ah loo eego sababtoo ah waa arrin la xiriirta sirta dheer ee Shiinaha ee hubka nukliyeerka waana kuwa qiyaasa aan u hayno waxa halkaas ka socda waxaa sidaasi BBC-da laanta Mundo u sheegay Hawas Shang siyaasadda Shiinaha ee ku aadan hubka nukliyeerka waa lagu guuldareystay in la shaaciyo macluumaadkeeda ku saabsan marka waxaan ka warqabnaa waa warbixinta ay diyaariyeen khubaro iyo saynisyahano ka socda dalalka kale adduunka gaar ahaan Mareykanka cabsida laga qabo hubkan muxuu yahay dhismaha kaabayaasha hubkan ayaa kor u qaaday cabsida iyo xiisadda gaar ahaan falanqeeyaasha taasoo muujinaysa isbeddel ama jihada cusub ee siyaasadda nukliyeerka Shiinaha dhismaan Yumen iyo Hami wuxuu qayb ka yahay qorshaha balaarinta nukliyeerka ee Shiinuhu wadaan ayaa lagu yiri qayb ka mid ah daraasadda ururka saynisyahanada Mareykanka ee FAS sida uu sheegay Shang tan iyo markii ugu horeysay ee tijaabadii bamka atomiga ee 1960-meeyadii Beijing waxay sii waday inay kaydiso hubka yaryar ee nukliyeerka ilaa xad ka yar kuwa kale ee atomka laakiin way qiratay jiritaanka hubkaas laakiin khubaradu waxay ka baqayaan in hoggaanka Shiinaha ee hadda wada siyaasada adag oo caalami ah uu sidoo kale doonayo inuu dalka ka dhigo mid ka mid ah wadamada ugu awoodda badan marka laga hadlayo hubka nukliyeerka